بسم الله الرحمن الرحيم أنا كتاب ونسام بون قلبي يا تم تي في أوفريزا ودك تلاني مقالة فرنسية ورك جيرو كشك ما تعمل سقنا بجاي تاي لبي طبعا بشي سديد لما طلعت اللح ورك جيرو كشك ما تعرف أنا كسوقاته ومت الصوماليات أما سياسيين ده ورتو حنو شيء صوماليا اللي إيبي أو إيبسدين كل حد الشيخ محمود تاسو حنكو عدينا habdhaqanka turkiga ay ka wadaan wadanka dhexdiisa turkiga hadday yihiin dad u dhexeeya ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka maanta jira way u jeedaan way xalli lahaayeen laakiin si dadban ayay arrinta u wadaan xasan sheekhna hubka ku dagaalamayo iyo daroniska ku dagaalamayo waa daroniskii loogu talagalay iyo hubkii loogu talagalay in lagula dagaalamo shabaab ayuu wuxuu kula dagaalamaa mucaaradka waxaa la rabaa inay dareemaan ay ka afgaabsanin ay caddeeyaan dowladda turkiga inay xasan sheekh ay dabada ka wado waxaa rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyo in uu gatay xasan sheekh waddankeena oo ka iibiyey turkiga waa wax iska cad heshiiskoo lasoo galay waxuu keenay baarlamaankeena weli anaga intaan asiga baarlamaankeena oo keenin baarlamaankooda ay mariyeen baarlamaankooda ayaan wax badan ka ogaanay kadib baarlamaankeena oo keenay baarlamaankeena dadka warqadii ma la siinin ma akhrinin gacanta loo taagaa leeyahay ka warrama macnaa nidaam heshiis lasoo wada galay adduunyada laba dowlad ay soo gashay oo gacan loo taagayo oon la akhrinin ka warrama maxaa ku qarsan meeshaas second xasan sheekh maxamuud wuxuu isticmaalooyay waxa waaye nidaamkii oo meesha ku yimid Erdogan wuxuu siiyey khitadii oo wax ku noqon lahay madaxweyne oo meesha ka tegayn maxaa yeelay Erdogan wuxuu ahaa awal markii hore wasiir uu ahaa ra'iisul wasaare yimid ra'iisul wasaare markuu yimid oo 2 sano oo 4 sano oo daba socota oo qaatay wixii waa daba gidiyay waa u wareejiyay madaxweyne ilaa iyo hadda asiga waxaa meesha ka muuqato hab dhaqanka oo xasan sheekh oo hadda ku dhaqmooyo waa asaas soo maray maxaa yeelay xisbigii asiga ka soo horjeeday oo awoodda lahaa oo ina meesha inuu ka qaato oo ka baqay ninkii oo la tartami lahaa wuu iska xiray maanta xisbiga dhan afka albaabka u laabay waxa taagan asiga kaligiis waay xasan sheekh xisbi oo GSP oo samaystay inta kalena wuxuu ka dhigtay malxiis kulli wax daba socdo dhan صدق تضربها الشيء جاي كل ما الحسين واحد وحاسة مستن حلوان هذا معنا وزير هذا أياسا مستن لعيك وقاتان وعلى ترتمى GSP أصاب حاجة تاسنا وحقوق طلق لي حسن الشيخ إنه أسيقة مركز GSP ملك استيقاظته إنه أسيقة إبريء دورتان حلوان هذا أصاب حيان مركز من صوماليات وعلى الربا إن ay horta dareemaan warsay wax u socdaan marka waxaan rabnaa anaga siyaasiyiinta oo anagana matalo waxaa laga rabaa inay dareemaan turkiga waxa uu wado inay caddeeyaan ay yiraahdaan turkiyow waxa uu doon ku jeednaa waddanka anaga iskale nala maleedid ogow xasan sheekh markii wax yar dhaqdhaqaaq yar la suubiyo inta inuu ka baxo oo wuxuu sameynaa markab uu keenaa ciidan uu keenaa bal hadda ka warrama maadaama baydhabo oo sidaad ogeedeen tartankii loo sameeyey xisbiyadii qof iyo codkii la galay wixii ka dhacay la wada ogyahay hadduu saldhig ka samaysanayo hirshabeelle saldhig weyn oo ku leeyahay oo hadda la dhisooyo marka waddankeena ninkan waa u soo guuray meel uga socdo ma leh ninka ku hay karana waa xasan sheekh maxamuud alloor xasan sheekh maxamuud wuxuu ugu dagaalamayo turkiga hubkiisa oo loogu talagalay in shabaab lagula dagaalamo oo macnaa lagula dagaalamo loogu talagalay oo shacabkiisa uu laynayo waxa waa inuu meesha joogo kaliya waxaa la rabaa siyaasiyiinta in ay ka hor yimaadaan dowladda turkiga iyo idin dhihin shir aan idin qabanaynaa shir ay qabanayaan ma leh shir madaxni lagu salaaxa waaye kiini lagu dil lahay waaye xasan awood se ugu yeeshay sheekh shariif oo yaqaano waddankan wuxuu ka soo maray wuxuu ahaay jabad ahaay tuug ahayn lacag dhicin ma weligiis wax edeb darra sameynin ninkii
kaaraan oo tegi ha laga soo wareejiyo guriga ha ku soo noqdo oo ku amraay ilaa heerkaas oo gaaro muxuu ku keeno hubka ku dagaalamayo dibaabaadka ku dagaalamayo waa kuwa loogu talagalay shabaabka midda kale ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego aan rabo waxa waaye xasan sheekh heshiis oo kula jira shabaab heshiiska kula jira waa caddahay aniga wuxuu yiri meelihiina mid kugu imaanayo meesha artiin soo qabsada laakiin xamar qarax laga joojiyo yaana la soo galin yaana lagu imaan ummadda marka la hadlayo wuxuu leeyahay xamar nabadaan ka dhigay xamar nabad ha ka dhigo dadka nabadda ma cunayaan dadka gaaja ka siinayso dhulkii ka boobooya lacagaha oo ka qaadana wuxuu rabaa inuu ku maalgeliyo xisbigiisa dhul oo dhaafay ma leh maalo raat wuxuu yiri waa joojiyey maxaa lahay makiinadihii wax oo baabiinay ilaa hadda waa socdaan qof oo dhaafooyna ma leh xasan sheekh marka waxaa laga rabaa in la iska qabta maahan wax kale ma jiraan second baarlamaan waqtigiisa dhamaaday iyo asiga waqtigiisa dhamaaday ayaa maalo raat baarlamaan aan furaa yiri waa furay oo ka hadalay hadalkiisa waxaa ku jiray qof kasto awood ay u leedahay wax alla waxay rabto inay sheegi karto oo dimuqraatig aan nahay annaga oo qof maxaa u hadasha loo xiraynin maxaa saan u tiri loo dhibaataynaynin ilaa ma uu qori ka soo qaato nimankaas odayaasha waxaan leeyahay soomaaliyada maanta ma aha soomaaliya shalay ama aad madaxweynaha ka ahayd ku-meel gaarka ah ama aad ka ahayd madaxweynaha ama aad ka ahayd wasiirka ama aad ka ahayd ra'iisul wasaaraha maanta ma aha Soomaaliya maanta Soomaaliyada taagan waa ka duwantahay Soomaaliyadaas maanta Soomaaliyada ma aha aan joognaa ma aha Soomaaliyadii siyaasiyiinta inta guryaha loogu dhaco dadkooda guryaha ku jira lagu laayo ee haddana marka la laayo dadkooda meydka laga dhowro loo diiday dulka lagu aasay ma aha maanta qof kasta afkiisa xor u yahay jasiirad tag hotel kala tag barxadda soo istaag intaba aadan amniga shacabka aadan wax u dhimaynin oo aadan qora la cararaynin xoraad tahay horena waa u sheegnay maantana ku celinaya xildhibaanada sharafta leh inay ogaadaan arraa banaanbaxaa furan isu imaadanaa furan talaa furan hadalaa furan hadal qof oo ka xanaaqo oo ma ka caro maxaa u daran midka asaga lagu caayo soo maaha maalin masaajidka naloo taagan yahay wax aan muxuu ahay ka waxaynayna malaha laakiin qorayaan soo qaadanayaa dadkaan khalqal gelinaynaa waa ereyaynaa dadkaan qaxinaynaa waa muujinaynaa inaan maxaan ku dhahdaay sharcigu awoodda qoray qaadashada iyo haddiiba waxa lagu fulinayo awoodda qoray wax ku fulinta sharciga dowladdu siiyo bas waxaan rabaa marka su-aashaan xasan weydiinaa waxay tahay war gabadha sacdiye la yidhahda sacdiye bajaaj oo ku xiran qori may sidatay maxay ku xiran tahay maxay 3 sano ku qaadatay hadda ay racfaan qaadatay waxaa la iskaga dawareejinaa maxay tahay adigana baarlamaanka waxaa ka leedahay oo waqtigiisa dhamaaday waxaa ka leedahay nin kasta waa xor buu sheegi karaa bas qofkii qori wadata gacanta ka qabanaynaa nin aan wax haleynaynin oo kale shalayna sheekh shariif iyo ballansadeen inay banaanbax sameeyaan ayaa tub la dhacday iyo drone oo la dhacday xasanow ma aqaan meel ku dambey doonto laakiin waxaan ku dhihi lahaa intoo waqti yahay iska gaar haddii kale dadka dictatorada ah meelaha u dambeyso kulli waa la wada ogyahay maxamed siyaad bare 21 sano uu joogay inkastoo waxyaalo aad iyo aad u fiican uu sameeyey Soomaaliya dadka dhigay adduunkana laga bartay waxyaalo badan oo qabtay jaamacadihii uu dhisay iyo iskuuladii uu dhisay iyo MCA'dii uu dhisay adiga burbursa gadatay oo adigoo shalay ninkii wax ku soo baray oo asiga ahaa ajoogi waa meesha marka adigoo shibil ah inaad dadka boobtid meesha joogta haddaa rabtid wax ku surugalaysa ma aha turkigana wax ay ku tiri karaan male soomaaliyana la yidhaahdaa annaga ma nihi dad oo layska iibsado oo sida raba laga yeelo annaga waxaan ka qaylisiinay Trump
waxtarkeena waxqabadkeena macnaa dad faahiima lahanahay adna waa ogtahay xasano waxaan ku dhihi lahaa intay waqti uu yahay ka faa'iidayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu